bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta lahow halkan waa codka soomaalida dalka Canada oo toddobaad waliba aad ka daawataan barnaamijyada horumarinta bulshada dhaqanka iyo suugaanta arrimaha diinta siyaasadda iyo ciyaaraha magacayguna waa Mahad Carabow Cali barnaamijka xagga farsamada waxaa idin farsameynaya Ali Bakr Sheekh bin Sheekh iyo Sheego Saciid barnaamijkeena maanta oo barnaamij gaar ah waxaa marti inoogu ah ciyaartooy heer qaran ah isla markaana aad wada taqaanaan muddo in ka badan 30 sanadood degan magaalada Toronto ee dalka Canada waa Mukhtaar Maxamed Axmed oo loo yaqaano Mukhtaar Cuti kana mid ahaa ciyaartooydii heer qaran ee dalka Soomaaliya Mukhtaar ku soo dhawow codka Soomaalida dalka Canada Assalaamu calaykum marka hore waa dhawaa Mahad Carabow runtii sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa codka Soomaali Canadian ayaan u mahadcelinayaa marka hore fursaddan qaaliga ay siiyeen caawa waan ku dhawahay barnaamijka caawa iyo martida aan ku ahay TV codka Soomaali Canadian aad u mahadsan tahay sidoo kale waxaan soo dhaweynaynaa martida kala duwan ee alaaba barnaamijka ka qayb qaata sidoo kale waxaan mahad gaar u celinayaa wariyaasha ayagana qayb ka qaata barnaamijyada ka baxa codka Soomaalida dalka Canada sidoo ay kala yihiin Xuseen Nuur Xaaji Muxudiin Jaamac iyo Muxudiin Sheego iyo Sheego Saciid iyo Nuxur Sheekh sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dadka alaaba gacanta ka geysta sida agaasimaha codka Soomaalida dalka Canada Maxamed Cabdi ugu horeyn Mukhtaar ku soo dhawaaw telefishinka sidoo kale waxaad nooga warantaa taariikhdaada oo kooban runtii markaan taariikhdeeda oo kooban idin sheego marka waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho Xamar ayaan ku dhashay 1964 marka dugsiga hoose iyo dhexe waxaan ku soo qaatay Hodan Howlwadaag iyo dugsiga sare Banaadir sare ayaan ku soo qaatay intaas marka runtii waxaan ahay nin ka soo jeeda magaalada Xamar oo aad iyo aadna runtii si fiican ugu soo koro aniga thank you waxaad inoogu runtaa halkee ayaad ka bilowday ciyaaraha maxayse ahayd waxa kugu dhiirigeliyay in ciyaarta kubadda cagta inaad ka mid noqoto ciyaartooyda kubadda cagta kuwooda loogu jeclaa waa su'aal aad u weyn Mahad waa mahadsan tahay marka si dhaxgala ciyaaraha runtii ana ciyaaraha hobigay aad aan jeclaa ciyaaraha runtii kubadda cagta kaliya ma dheeli jirin waxaan kaloo dheeli jiray runtii basketballka intaan kubadda cagta kusoo wareegin basketball ayaan aad u jeclaay aan dheeli jiray runtii ilaa heer degmaan ka gaaray Howlwadaag u dheelay degmada Howlwadaag u dheelay laakiin nasiib wanaag waxaan aad aadana kusoo wareegay kubadda cagta oo laga qaatay barxaddii Howlwadaag runtiina aan noqday ciyaartooy ka bacdi junior waxaan sanadkii markuu ahay 1976 to 77kii ayaan juniorkii batroolka ee kooxda kubadda cagta ayaan ka mid noqday waa tahay ma goormaad ku soo biirtay heerka koowaad heerka koowaad waxaan kusoo biiray 1980 ayaan kusoo biiray heerka koowaad 1979kii to 80 ayaan kusoo biiray runtii heerka koowaad markaan kasoo baxaba macalinkii markaas neestay macalin boodista ahay oo watay kooxdii batroolka wuxuu ii gartay oo ila xareeyay anagoo aad u yar oo juniorka markaas ciyaarihii juniorka soo dhameystay 1976 to 77 waxaan kusoo wareegay 78kii kooxdii batroolka ee waaweynaay oo ayaa la xareeyay ayuu xareysan ayuu macalinka wuxuu yiri kaliya ayuu soo qaatay kooxdii juniorka si uu isi tababaro kooxdii waaweynka oo ziira aad ahayd markaas waxaan kusoo biiray 78 ayaan kusoo biiray kooxdii waa tahay ma xasuusataa goolkii ugu horeeyay oo aad lisay ama kooxdaas ugu horeysay oo aad heerka koowaad aad u safatay heerka koowaad san ku sheegay waxaan u saftay aniga kooxdii batroolka oo runtii koox kale ma aan u safan oo ma aan u dhiilin waa jiraan koox kale aan u dhiilay laakiin kooxdii batroolka ayaa ahay kooxdeedii rasmiga ahayd aan u dhiili jiray xagga professionalka kubadda cagta waxaan jeclahay goolkii ugu horeeyay waxaan ka dhashay kooxdii la dhihi jiray Fiat ama Waget ayaan ka dhashay goolkii ugu horeeyay sanadkii 78 Mukhtaar dad aad u fara badan ayaa alaaba ka qayb qaadan jiray markaa ciyaaraha dheelaysid ku daawan jiray marti ayaa noo joogta caawa
ka qayb qaadanaya barnaamijkaaga mid ka mid a aan siiyo ugu horeynta koowaad asagoo magaciisa ku bilaabay. السلام عليكم magacayga maxamuud cabdulaahi gacal waxaan rabaa halkan inaan ka weydiiyo mukhtaar cuti waxaa jirtay cayaar waxool ay aaday magaalada Burundi cayaartaas maada raacin waxool markay yimaadeen magaalada Muqdisho cayaartaas mukhtaar waa dheeshay see ku dhacday maadaama horad u raacin Burundi. waa mahadsan tahay saaxiibkay allo loo yaqaano waa su-aal meesha idan ku jirto runtii markii cayaartaas aniga ma aan raacin waa sax waaye oo waxay ahayd is arag cayaar lagu soo dheelaya qaybtii hore Burundi qaybtii labaad la imaanayay magaalada Muqdisho runtii waxaa jirto cayaaraha cayaartooy marka hore waxaa waaye fursadii oo xagga kuma raacina laakiin waxay ahayd inaan markaa Muqdisho imide xoojiyo kooxdii maadaama xagga lagu soo badiyay hal eber marka waxaa la gartay in aan lagu xoojiyo ciyaartaas oo aan ka qayb qaato si ay kooxdu soo baxdo qaybtii labaad oo wareegga labaad uu soo baxdo marka waxaa jiray gudoomiyaha kubadda cagta Faarax Weheliya Cido Allah naxariisto Faarax Sindigo ku magac dheeraay ayaa mar ii wacay wasaaradda sports uu wacay marka wuxuu yiri Mukhtaar waxaan jeclahay kooxdan oo waxool in aad xoojiso ciyaartaan ka dhici doonto magaalada Muqdisho qaybtii labaad marka anina maadaama fursad qaali ay tahay aan rabo inaan wadankeyga wax u qabto ama aan u dheelo ama aan soo saaro waxaan ka aqbalay codsiga oo ii soo jeediyay maadaama madaxda kubadda cagta xiriirka kubadda cagta oo ahaa gudoomiyaha kubadda cagta ah markaas Faarax Allah naxariistay marka ciyaartaas anina waa dheelnay runtii ciyaartaas waa badinay oo waxaan ku badinay 2 eber oo waxaan soo baxnay qaybtii labaad anuu u dheelay kooxdii waxool laakiin Sibonaak waxaa dhacday wareegga labaad anuu sugan oo xareesan in la dhahay kooxdii adan dhibcooyinkii waana laga qaaday sababtoo loo qaadan waxay ahayd ninkii markaas goalkeeper-ka ahaa Garama oo loo yaqaan Garama dhigay oo asana madbacdu dheeli jiray oo kooxdii waxool asana markaas helbigreynaya aan asiga ku jirnay dadkii helbigreynaya ahaan waxay ahayd wuxuu soo qaatay sida loo yaqaano guduudka ama casaanka magaaladii Burundi markuu soo binji fadhiyo waxa soo qaatay guduud marka ciyaartii xamar ayaa lagu dhirsiiyay asana waa qayb ka ahaa inuu dheelo saas daraadeed kooxdii waxay garatay Garama in uu xagga guud soo siiyay ciyaartii xamar ka dhicaysa uu qabtay ciyaartii marka dacwo ay furteen dacwada ay ku guuleysteen si ayaan loo qaaday ciyaartaasi 2 dhibcood aan ku harnay anigana waa tahay waa mahadsan tahay Mukhtaar ma noo sheegi kartaa ama ma xasuusan karaysaa naadiyadii ugu nacbeed marka aad iska hortimaadaan si aad u khilaaftantaan isla markaana aad isaga hortimaadaan waa badiyeen naadiyada runtii waa difaaca aad u adagna waa jiraan oo aad oo macnaha dadka maanta meel ku raaco ama 1-on-1 u raaco oo aad aadan ka fakar karin kooxaha waa jiraan sida kooxdii badoo kale ama waxool oo kale waa team aad difaacooda u dhisan yahay runtii haddaan soo qaato kooxdii waxool markii ahayd uu ahaa macalin Garaar Allah naxariistay difaacooda waa la yaqaanay runtii difaac wuxuu ahaa aad isla socdaan oo hataa waxay dheeli jireen qaybta hobsetka waxta ay soo bixi jireen sidoo kale badana waxay qaban jireen dad la dhihi jiray shanta masheexo oo ayagana aad difaacyo diiniyo kale abeelo kale meena jamaalo kale iyo George Buster dad aad waxay ahayn la dhihi jiray shanta masheex ay loo magacdareen meena dad cabsana ama dad xishana ma hajareen marka tiimka kalena waa aad u fiicnaayeen laakiin tiimkaas aan dhihi karaa tiimka waxa ka cabsi jiray inay yihiin ayaga waa tahay xulka qaranka ayaad u soo ciyaartay ma xasuusantaysaa markii ugu horeysay oo lagugu yeeray inaad ka mid noqotid xulka qaranka Soomaaliyeed waa xasuustaa runtii waa waxyaabaha muhiimka ah in xasuusta ay tahay arrimahaas oo kale xulka qaranka waxaa lagu wacay 1980 ayaa lagu wacay xulka qaranka ani kaliya ma ahayn markaan idinka sheekeeyo ama dadka weynaha hadda maanta iga fiirsanaya inta oo sheego waxaan ku xaroonay aniga qarankii ugu horeeyay oo markii la xariinayay waxaan ku xaroonay waxaan ahayn 60 qofood ayaan ahayn oo 60 ciyaartooy oo la soo kala qaatay tiimanka kooxaha naadiyada ee 10 kooxood ka tirsanayay wadanka waqtigaas ayaa la soo wada qaatay in la soo xulay marka runtiina waxaan aad u meelinahay meeshan arrimaha fursadda inaan dadka u sheego wasiirkii markaas noo ahay sportska Allah naxariistay mar awaal jaamaca runtii wuxuu ahaa nin
aad iyo aad ciyaaraha u jecel oo runtiina ah nin Soomaaliyeed oo aad u fiicnaa oo wasiirna ahaa markaas nin ku soo gaaray ama la koobsaday oo wasiirna ahaa marka macallinkii qaranka markaas asna macalinkaas oo xulinayay ciyaartooyda wuxuu ahaa macallin Germany oo la dhihi jiray Klose oo German ahaa macallin kala Klose marka markii aan nimadna 60 qofood lagu yimid runtii 60 qofood waa taas si loo soo xulo ama loo kala saaro marka macallinkii wuxuu ka codsaday markii maalintii ugu horeysay wuxuu ka codsaday aan nimadna isku keenay sidii Muqdisho wax xasuustaa oo aan meetingkii ugu horeysay aan leeyahay wuxuu ka codsaday coachkii markaas Klose wasiirku wuxuu ka codsaday mar awaale in 60 qofood loo xareeyo oo sidii Muqdisho loo soo xareeyo isbartiibada waa taqaaniin sidii Muqdisho wax kasta ay leedahay hotel garoomo dhinac kasta oo ka dhisneed marka wuxuu ka codsaday wasiirkii in 60 qofood loo xareeyo oo kala saaro oo si uu kala saaro oo kala baxsado si uu kala ogaado ciyaartooyda oo anfaco ciyaartooyda marka waxa ugu horeysay qaran aan galo 1980 ayaa ugu horeysay marka qarankaas ay ugu horeeyaan insha Allah waata maxay ahayd guulihii ugu weynaa oo aad ka gaartay xulka qaranka Soomaaliya guushii ugu weynayd maanta aan tilmaami karo ama ku faraxsanahay waxay tahay waa kooxdii qaranka juniorka ee Soomaaliya aan ka mid ahay runtii oo aan qayb ka qaatay waxaan ku guuleysanay ciyaarihii bariga bartamaha aan ku faani karo taas ayaa igu muhiimsanayd ayaan ku faani karaa maanta ciyaarihii bariga bartamaha ee juniorka qaranka ee lagu qabtay magaalada Muqdisho aniga ayaa qaadnay Soomaaliya ayaa qaaday waa tahay aan eego marka dhanka martida caawa barnaamijka igu ah aan siiya mid ka mid ah martida in Mukhtaar kala soo qayb gashay halkan السلام عليكم ورحمة الله magacayga waxaa la yiraahdaa Cabdishiid Xasan Cali Shabashabo saaxiibkay Mukhtaar Cuti waxaan rabaa inaan weydiiyo Mukhtaar wuxuu ka mid ahaa naadiga Batroolka laakiin waxaan aragnay asoo u dheelay Horseed Madbacadda Wuxool marka waxaan rabnaa inaan ogaano si ku dhacdo Batroolka soo inuu kooxaas u dheelo runtii waa ka mahadcelinayaa Cabdishiid saaxiibkay waa su'aal aad u fiican idane marka waxaan rabaa waa jirtaa runtii aniga waxaan ka mid ahay kooxdii Batroolka ayaan ahay koox ahaan ayaan u dheeri jiray kooxdii Batroolka laakiin waa jirtaa inaan kooxahaas la soo sheegayo sida Horseed Batroolka Horseed Madbacadda qaranka Wuxool aan soo dheelay aan u saftay waxaa jirta marka la soo bejiray haddaan idin sheego ama aan markaas sheego kooxdii horyaalka qaato ama kooxdii Jandaawda qaato ayaa dibadda aadi jirtay kooxaha markaan wadanka markaas aan dhisnayn oo kooxaha ka dheeli jireen waa la xoojin jiray runtii macnaha 2 ciyaartoy ama 3 ciyaartoy ayaa la soo dari jiray si ay u kabaan ciyaarta oo ciyaaraha u xoojiyaan marka waxaa la soo bejiray markaan raacayo kooxda aan raacayo example markaan raacayo Horseedoo kale waxay soo qaadi jirtay iskeedii cusub ayaa la soo bejiray iskeedaas ayaa magaceedu lagu qori jiray aan ka tirsanahay kooxda Batroolka من كواحد هرسات انك تستنى هاي الغوري جري سنه كاس ان سو قال سنه كاس او كواحد كسو وريغي كواحد كسو وريغي بتروكا ان وريغي كواحد هرسات كل اكزامبلان sidoo kalena tiimka kale saas kale ayaa jirtay marka raacayo ayaga iskeed Soomaaliya keen jiray aan saxiix jiray saas ay wadaar jiray kooxaha kale maganaha si aan help gareeyo ama caawin waa mahadsan tahay Mukhtaar dabcan kubadda marna way ka farxisaa marna way ku murjisaa ma noo sheegi kartaa markii aad la kulantay wax adiga aad la murugootay isla markaana kubadda ka soo gaaray runtii atro alxamdulillah atro dhaawac ahaan wax atro igu soo gaaray ma jirto oo alxamdulillah ilaah mahad leh laakiin ciyaar ahaan runtii ciyaartii haddaan kaa sheekeeyo igu xumeedoo kale example ahaan waxay ahayd ciyaar aan ku dheelaynay Masar aan la socdo kooxdii Horseed oo ciidamada qalabka sida Caway Maalin Horseed aan ka tirsanay ayaan u dheelayay runtii kooxdaasi waxaan u bixinay koox la dhahay Al-Muqawwaluun Carab oo runtii markaas idin ahayd kooxaha u adag oo Masar ka dhisnayd markaas runtii aad loo qadariyo iyo wax maqal jirnay Zamalek iyo Al-Ahli aan maqal jirnay Masar laakiin kooxdaasi markaas Al-Muqawwaluun la dhahay waxay top number 1 iyo number 2 ay ahayd runtii waxaan u dheelay ciyaartoy professional ahaan oo wili dibadda ka soo gateen ay u dheeli jiray sida goalkeeper kale ama nin dhexda ka dhiilayo oo markaas xataa ahaa magaciisa aan hilmaamay dad aad waxa soo gateen ay u dhiilaysay marka ciyaarta ciyaar ugu xumad aan dhiilo oo ama aan ka qayb gal ay ahayd oo waxay u dhufteen 7-0 wili 7-7 iyo markaas kaliya ma ahayn hataa ciyaartoy kamid ah ciyaartooydeeni
ula socotiin dhammaantiinba aad magaalooyinka ama markaa meelaha journaalada ka maqasheen ciyaartooy ka mid ahaa ciyaartooydiin oo loo xiray micnaha in uu waday daroogo lalahay nin ahaa markaas oo muddana Masar oo muddo allah u naxariisata wuxuu ku dhintay xabsiga Masar ayuu ku dhintay ninkaas ciyaartooygaas ahaa micnaha John Faqri allah u naxariisto runtii ciyaartaas ayaa ugu murug badnayd runtii ciyaar aan micnaha safto ama aan dhiilo ama aan ka qayb galo runtiini waa waxaan u riday mucjiso weyn ayaan u riday ciyaartaas oo runtii la qabsoonay tii igu farxa badneed aan deegaanka isku geeyo aan ku sheego waxaa waaye ciyaartii igu farxa badneed aan dhiilo oo aan u jeclaysto waxay ahayd isla kooxdaasi almuqaawuluun alcarab markaynu qaybtii hore ka dhacday Masar ka dhacday Qaahira ka dhacday qaybteedii labaad waxay ka dhaceysay magaalada Muqdisho runtii markay soo yimideen Muqdisho ee ciyaartii labaad in dhiilayeen runtii arturo intaan ciyaar dhiilayay waa ciyaartii aan arkay oo igu dad badneed oo ciyaar dad weynahay uu soo qayb galay dadkii kasoo qayb galay aan arko ciyaar la fiirsado oo aniga dhiilayo ciyaartii ugu shacab badneed ama dufooso badneed ciyaartaas ay ahayd runtii oo qof kasta wuxuu isdhahayay dadkan kooxdii horta kasoo dhashay 7 eber bal qof kasta inuu arkiyo rabi markay ku dhiilayso magaalada Muqdisho ku dhiilaynay oo ciyaartii qaybtii labaad runtiina ciyaartaas ayaa u farx badneed oo waxaan ugu badin aniga ciyaartaas 2 eber aan u badinay magaalada Muqdisho waa tahay waxaa jecel su-aal inuu ku weydiiyo Muxudiin Jaamac oo ka mid ah wariyaasha codka Soomaalida dalka Canada Muxudiin soo dhow aad u mahadsan tahay mahad carabow runtii waa ku faraxsanahay Mukhtaar Maxamed Axmed Mukhtaar Cuti runtii rugcada sportiga asagoo ah oo aan ognahay taariikhda sportiga Soomaaliya meeshuu kaga jiro Mukhtaar waxaan rabaa inaan ku weydiiyo sidaad og tahay adigu waxaad tahay xidigihii ugu caansanaa xulka qaranka iyo gaar ahaan naadigaagii batroolka marka laba su'aal oo gaagaaban ayaan rabay inaan ku weydiiyo waa fursad markii sidan oo kale qof rugcadaayo oo runtii tusaalaha noole sportiga ka mid ah fursad loogu helo in runtii wax badan la weydiiyo si ay u noqoto kayd jiilka dambe waxaa jirta cayaar anigu aan fiirsanayay oo ka dhacday magaalada Muqdisho batroolka iyo koox kale inay ciyaareysay marka waxaa jira ciyaartooyda tiimamka ugu caansan ama tiim walba waxa uu leeyahay ciyaartoyhan xidiga oo aad looga dambeeyo marka adigu waxaad ahayd xidigihii ama ninkii xidiga ka ahaa naadigii batroolka waxaa jirta ciyaartaasi in macallin Budiiste uu rabay inuu bedelo ciyaartooy Daysane adigoo dhexda ku jira ayaa runtii soo cararay Daysane ayaad waxaa tiri waa joogaysaa garoonka ku jiraysaa ma la bedelayo macallinka waxaa ku tiri ma la bedelayo isla markiiba macallinka go'aan uu gaaray ciyaartooyga kala la bedelay runtii adigu waad akhrinaysa garoonka gudihiisa waxa ka jira adana macallinka kaga xogaalsanaa laakiin dadku inta badan waxay dhahaan ciyaartooyda xidigaha ah marmarka qaarkood waxay bedelaan go'aanka macallinkooda taas waa su'aal arrintaasi bal waxaan rabaa inaad naga shaafiso midda kale aan ku weydiinayna waxay tahay ciyaartooyda runtii adigoo kaleeta ah oo runtii lagu xisaabto markuu kubadda qabto markaad kubadda qabato waxaa jirta tiimkaaga ciyaartooy kula mid ah oo runtii garbahaaga u ordaya adoon markaa kubadda haysatana cararaya oo boos qaadanaya inta badan ma dhacda ciyaartooyda ayagoon kubadda wadan inay dhaqaaqaan marka adigu markaad aragto in kubadda adiga lugtaada ay soo gasho ciyaartooyda inay dhaqaaqdo oo ay boos qaadato iyo inaad u sheegto adigu sidee bay ku fiican tahay marka labada su'aalan ku weydiinaya aad mahadsan tahay waa mahadsan tahay Muxudiin Jaamac oo runtii nin aad iyo aad aan qadariyo oo asna wariyo weyn oo Somali National TV ka shaqeeya qaybta ciyaaraha magaalada Toronto horta Muxudiin aad iyo aad aan ka macilay su'aalaha weydiisay waa ku mahadsan tahay aad u mahadsan tahay labada su'aalood markaan soo noqdo midda u horeyso runtaa waaye waa jirtaa ciyaartaasi oo hataa dad badan ayaa i weydiiyey meelaha lagu shaahaystay iyo meel kasta markii u arkaan i weydiiyeen ciyaartaas see u dhacda ama see oo lagaga yeelay in bedelkaasi oo macalinka oo bedelku waday maahna bedelka qof kale aan soo geliyo runtii markaan ku sheegay marka u horeyso waxaa maanta mahad leh ilaah ka suko macallimiinteedii macallin Budiiste iyo macallin Cumar macallin Budiiste runtii wuxuu ahaa runtii ninka tiro bacdi keenay oo anoo junior ama bacad ku dheelay ninkii soo qaaday junior keenay kadibna hadana kooxda weyn Zira ayuu soo diray hadana kooxdii qaranka hadana macallin ay haataa ayuu ahaa macallinka runtii nasiibta wanaagtaas ku yeeshay haddii aan soo noqdo su'aalihii la weydiiyey ciyaartaasi waxay ahayd Kobjan Daoud waxaa jirtay in aniga kabtanka kooxda noo ahaa batroolka macallinkana aad ayuu ugu korsoonaa runtii oo waxa waaye aniga macalinka saaxiib gooni aan sii ahaynay
marka waxaa jirta ciyaarta tiro waa dhammaanaysay oo waxaan u maleynayaa 10 daqiiqo 15 daqiiqo camal ka dhinayd ciyaartaasi marka macalinku wuxuu bedelayay maxamed cumar falkaawe ciyaartooyda oo fiicnaa oo dhaxda oo aad u fiicnaa macnaha wuxuu bedelayay Desan example iraalahada wuxuu bedelayay 11 Desan ayuu bedelayay oo qaybta 11 ka dhiilayay ayuu bedelayay runtii macnaha aniga marka ciyaartan hadda waa dhamayaysaa oo 15 daqiiqo ilaa 10 daqiiqo ayaa ka dhinayd ciyaartan marka aniga maadaama aan gudiga ku jiro la socdo wax kastana waxaan kusii fikirayaa ciyaarta inuu xigto oo ciyaar finaal aan la dheeli doono kooxda matbacada qaranka oo koob jandaa u idin sugay aheeday ciyaartaasna waxaan jeclahay inay ahayd semifinal aan dheelayna ciyaartaas oo macalinka bedelayay semifinal ayay aheeday oo waxaan u baahanay inaan jeclahay fiyaad aan jeclahay kooxda fiyaad waged marka macalinku wuxuu rabaa inuu bedelo maxamed cumar falkaawe oo ku magac dheeraa inuu bedelo rabo macalinka minaha may wuxuu rabaa inuu bedelo Desan maxamed axmed maxamuud Desan ayuu rabay inuu bedelo marka anaa celiyay Desan oo joojiyay waxaan ku bedelay maxamed cumar falkaawe oo dhaxda u dhiilay oo ciyaartooy aad fiicnaa oo qiimo laho nin dhalinyaro marka oo ahay waxaana tahay dadka rabaa inaan hadda u sheego aan ka faa'iideysanayo muuqaalkan dadka iyo daawadoona iyo minaha u sheegi doono falkaawe wuxuu qabay yellow ayuu qabay jaalo ayuu qabay ciyaarta ku xigtana finaal ayaan leenahay marka waxaan diidayay in uu kala qaato yellow kale inuu qaato oo red la siiyo ana waxaan sii fikirayaa ciyaarta kale oo soo socoto oo finaalka maadaama aan tan badinaynay waxaan ka fikirayay tan kale oo soo socon doonto oo finaalka tahay inuu maxamed yari iga fadhiisto ayaan diidayay minaha oo may inuu fadhiisto minaha maxamed yaro maadaama yellow qabo inuu fadhiisto ayaan diidayay minaha yellow waa dirsi yellow kale loo xujiyo waa red ayuu qaadanayaa hataa ciyaarta kale ma dheeli karo marka finaalka marka waxaan ku fikiray marka maxamed yaro intuu Desan la bixin lahay minaha macalinku bixin lahay waxaan ku fikiray Desan maadaama uu jaalo haysanin inuu Desan garoonka joogo maxamed yara oo yellow qabay oo u rabo ciyaarta dambe inuu dhiilo oo ninka dhaxda ii haya uu ahay aan isdahay ninkan hala bedelo si uu ku dhiilo ciyaarta dambe finaalka ayay ahayd marka saas ayay ahayd midda oo bedelka ee u dhacday atro aan rabay inaan dadka u kala cadeeyay saas inay ku dhacday bedelka tan labaad waxay ahayd waxaan jeclahay ciyaartooyda inuu dhaqaaq iska soo biyo action soo biyo runtii markaas waxaa soo yeelaysaa fursado badan runtii waa hataa trainkan aan la soo siiyo ama marka oo qaadanaysa limitada waxa marka baloolaysid waxa waaye dhinacan iyo dhinacan labada dhinacba qofka jooga waa inuu soo durqaa oo ku yimaada adiga ama ku soo doonaa marka waxaa fiican qofka markuu baloolo wato inuu helo geesihiisa dadka jooga inay usoo baxaan ee istusaan inuu qofkaasi baaska u dhiibo laakiin haddaa arkadeed kaliga haddaa baloo iska wadsid ama ku daashid ama wala qaad karaa ama waa ka halaabi kartaa marka simbir qofka waxaa fiican inuu helo dad caawinayaan oo markaas dad garbiisi joogaan training kan soo qaadaan runtii marka xataa waan soo jireen macallimiinteena buudista iyo macallin umri kulli waan soo jireen macnaha qaybta si aan u dhiilenayo runtii waxaan jirnaa aniga dadkii macnaha ciyaartooy dhalinyaro oo aad runtii iskuul ciyaar yaqaan oo isjecel ayaan ahaynay runtii ciyaartaas xitaa koobka Daawud oo aan idin sheegay hadda aniga qaadnay oo waxaan ka qaadnay kooxda madbacada qaranka waa tahay mukhtaar waxaa jira dhalinyaro fara badan oo qurbaha ku sugan gaar ahaan dhalinyaradaas qaarkood intay ku dhasheen qaarkood wadankay ka yimideen waxaa la dhalinyarada qurbaha ku dhalata qaarna ku koray sidee loo xaqiijin karaa dhalinyaradaas inay ka gaaraan heer kubadda cagta runtii qurbaha tiro ma wax fudud ma qurbaha runtii markii loo dhigo wadankeena hooye iyo qurbihii runtii waalidiintii waxay ku mashquulsan yihiin dhinaca shaqada ama minaha shaqa caruurta ayagaa shaqe same time laakiin waxaa fiican runtii ilmihii sports inuu jeediyo oo waalidiintii inay xagga sportsigana runtii wuxuu ka qaadanayaa kaalin weyn runtii ama kubadda ha ahaado ama basketka ha ahaado ama orodada ha ahaado inay ciyaar oo sportisa waxaa fiican waalidka tiro cunugiisa inuu hal mid ku qoro ama ku daba socdo oo la socdo inuu ciyaarahaas geliyo qurbo hadda waa aragnaa runtii oo macnaha siiba aniga hadda waxaan joognaa North America Canada ayaan kasii deganaa magaalada Toronto runtii magaalada Toronto waxaa aad iyo aad loo qadariyaa saa ula socotiin hockeyga iyo xoogaa baseball iyo baseballka kusoo xiga kubadda cagtana waa sii liidata xoogaa waxaan uga roon Europe iyo Mareykanka uga roon laakiin waxaan dhihi lahay same time in ilmihii aad iyo aad sportka loo waxeeyaa runtiina waa la socotiin haddaba
dhalinyaro badan oo macalimiin oo ilmo yaryar hayaan oo tiiman badan ayaa jiro oo wadankeena hadda inta xataa toron ay ku hayaan oo ilmo badan ay soo saareen sida horseed xarbi oo kale iyo micnaha anwar oo kale iyo daahir boodaya hilaac oo kale iyo runtii hilaac xataa waxaan dhihi karnaa runtii hadda sanadka u dambeeya ayaa jambiyo ka qaatay waxayna ahaayeen marka oo ay bilaabayeen ilmo yaryar ayay ahaayeen hadda waxay gaareen in jambiyoonka toron ay haystaan ayaga ay haystaan marka waxaan jeclaan lahaa waalidiinta inay sportiga ilmihii kula dadaalaan inkastoo iskuulkii iyo dusigii usii dheeraya waxyaabahaas iyo shaqadii waa tahay markaad ku samaysid isbarbardhig cayaarihii hore ee soomaaliya lagu qaban jiray iyo cayaaraha haatan la qabto farqiga u dhexeeya markii soomaaliya lagu qabana cayaaraha fursad weyn haysanaa wadankeena haysanaa waxaa haysanaa goramo badan haysanaa bermid mu baahna xitaa waxaa ku dheeri kartaa bacaadaha ku dheeri kartaa meegsa ku dheeri kartaa fahmino garoomada waaweyn oo tiimamka xitaa ka codsan kartaa alaalmeentay kartaa laakiin inta waxaa waaye garoonka marka hore wuxuu kaa baahan yahay bermid oo wuxuu kaa rabaa micnaha inaad dowladda kasoo weydiisatid bermid aadan ma la siinaayo tan labaadna waxaa waaye labada waxay u kala duwan yihiin midna waa magaaladaada wadankaada waaye oo micnaha waxaa heli kartaa zeri b zeri c zeri a kulli ayaa soo mari kartaa oo soo kubci kartaa laakiin inta waxaa waaye waa aad tahay saa tiim u heshid ama aad tiimka hadaa heshid waxaa waaye waalidkiina waxaa waaye inuu wado inuu geeyo inuu soo celsho waa haddana waa tahay waxaa jecel inuu su-aal ku weydiiyo mid kamid a wariyaasha codka soomaalida dalka Canada oo isla markaana kamid a fanaaniinta reer Toronto kuwan ugu jecelnahay waa Muxudiin Sheego soo dhawow mahad aad u mahadsan tahay legend Mukhtaar waa ku salaam walaalkeyga one of your fans aan ahay oo halahan sano 30 sano aan kula joogo magaalada Toronto su-aasheeda waxa waaye هدايا ما حد سؤال كويدي وانا اجوابتي لكن سؤال شاسيتي عن رواك صوت تفاسير زايد انها كبحسد سؤال شو وحو هاي كوحدة اما عيارتودا كبخي جرتي waxaad ka jawaabtay shanta mashiixyaasha marka ay ahaayeen su'aasha marka waxaan rabaa inaan ogaado aniga reer Baraawe ahay shantaasna waxaan maqlay ama waxaan ogahay inay ciyaartooy oo reer Baraawe inay yihiin marka wax yar taariikhdooda iyo cabsiga oo zaaid aad jiray ama shantooda iyo zaaid aad ka cabsan jirtay ama maxaa taariikh oo ka xasuusan kartaa wax yar noo sheegi kartaa mahadsanid ما سنت أدري محدين شيء هذا ما سنت هاي وأنا ما سنت هاي دفوساي هذا وكان ما دعينا يا إن هدي أنك سنقول السؤال شاسي شنت مشي حيال أرد فهمتي وحواي شنت أدري وحواي إن قول كيبرك سقوي جورجي ديني جمال إن أبيلة تاتا يو كشنات على شيخ بربي سوا shantaas aad raayeen runtii waxa waaye shan atur runtii waxa waa difaac fiican oo runtii aan loo gali karin in ayr ahaan anu waxa way iga horeeyeen meena garoon aan way iga horeeyeen xogaa laakiin soo gaarnay waa la kulmay waa la dhiilay waa isla safanay runtii specific ahaan gaar ahaan oo aad iyo aad waxaan u cabsan jiray aniga diini oo runtii difaac wuxuu ahay runtii aad iyo aad u fiican oo aad iyo aad u khatar ah oo runtii laga cabsadana waa ahay runtii marka la hadlo marka diin ay ka cabsan jiray waa tahay Mukhtaar sida aan la soconno 30 sano ugu dambeysay Soomaaliya marba heer bay soo gaaraysay heerar kala duwan maxaa ugu wacan Soomaaliya inay kaalmaha ugu hooseeya qiimeynta FIFA ugu jirto kulamada iyo guuldarooyinkaas maxay tahay anagoo khibradaada ka faa'iideysanayno runtii Soomaaliya waa sax waaye waxay u jirtaa qaybaha ugu hooseeya u jirtaa meelaha ringa marka la tilmaamayo kala sareynta oo ciyaaraha adduunka ama wax kasta dhinac kasta oo ciyaaraha sportska siba kubadda cagta aad iyo aad ugu hooseysa waqtiga hore atira laba waqti aan soo kala qaado marka waqtiga atira dawladda gacanka ahayd runtii dawladda gacanka waxay ku dadaal jirtay runtii dhaqaale fiican ay gali jirtay sportska runtii wadanka aad ayaa loo jeclaay oo waa la soo jiray in midna ogaaw runtii aad waxaan ka tirsanahay kaliyan ma ahan aniga kaliyan ma ahan Soomaali kaliya ma ahan East Africa markii la dhaho kooxaha East Africa runtii hoos ay ku jiraan waga aniga dhiilayna ciyaaraha marka hore ka hadda hadee kor soo kicin kala ma sheegi karo laakiin East African ahaan wadamada isku dhaho bariga bartamaha isku dhaho
runtii hoos ay ku jiraan oo waxaa waaye runtiina ma qabaan wadamo diris leh sida hadda wadamadan oo africa galbeedka laliya kale wadamada ku dhow dham waxaa waa yurub u dhow runtii xataa ciyaartooy wuxuu leeyahay fursad u ka dhiilo yurubiyaanka oo laga qaato maadaama algeria oo kale morocco oo kale iyo wadamadaas tunisia oo kale iyo masar oo kale iyo waxay helayaan fursado waaweyn helayaan oo aad iyo aad u dhow macnaha inay wadamo yurub ay diris leeyihiin laakiin aniga maadaama aan nahay afrikaankii hoos ugu jirnay haddana runtii mustawaha ciyaaraha la dhaho oo kor soo kaca aniga markaan ka hadalno wadankan markaan joognay ama aan ciyaaraha firsi jirnay wadamada ugu waaweyn waxay ahayeen uganda iyo malawi iyo herarka sare joogi jira macnaha goobabka badan ayaga qaadi jiray bariga bartamo oo kale iyo dadka lutari ayaga ahaa jireen same time ayagana meel xitaa ma sii gaari jiren aniga markaa iska dhaafba dadkii koobka qaadi jiray ayaa meel gaarin laakiin anigana oo aan koobka qaadin waxaa waaye waxaan malaynaa inaan kasii hooseyna marka ma dhihi karo runtii waxaa noo geysay micnaha dhaqaal la-aan laakiin waxaa noo geysay micnaha waayo arig la-aan ayaan dhihi karaa oo aad iyo aad waayo aragnimada ayaan u yareed oo aan tiisiyaas aan lahayn oo aan gaari karin waa mahadsan tahay mukhtaar mar kale aan fiiriyo dhanka martida barnaamijka mid kamid ayaan rabaa inaan soo dhaweeyo martida caawa barnaamijka mukhtaar maxamed axmed mukhtaar cutaan ugu talagalna soo dhawow asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa dhowahay waa idin salaamay dhammaantiin maxamed mukhtaar maxamed axmed waxaan weydiinayaa su-aal baan weydiinayaa su-aashaasna waxay tahay maadaama uu saaxiibkee yahay uuna ahaa waktigii barsamaadka mucjisadii kubadda cagta ee soomaaliya waktigaas 80 ilaa 88 intuu wadanka soomaaliya markuu kasoo tegaya markuu halkan yimi mukhtaar aad wadankan timina waxaad noqotay ninkii aas-aasayaashii sportskii canada marka waxaan ku weydiinayaa ma laga yaabaa mukhtaaro maadaama uu wadankii kuu baahan yahay inaad ku noqoto wadankii si aad khibradaada iyo magacaaga iyo hawsha aad halkanba hadda ka qabatay inaad wadankii ku celiso ma laga yaabaa سليمان ما سنت أدي أدي وقدرية هاي وأنا كم ما سنت بساشة ويديسي وصح رنتي مركورة روحان ربا أنا فرصة كسيف في سنايو ددوينها سوماليد عيارها جعلا يا أنت مكروه مهد علنا يا مهد إلا كسكو رنتي إن أي آيات روحي كان سو جرسي عيارها أو إن أن رنتي شعب وينها ددوينها سوماليد إن كل هذا مقع وين رنتي إن أي يوم مهد علنا يا رنتي تغييرش سيجرين أما سيدي مركان دي العيارها أدي معناها يدي رجال جرين معناها يبوش جرين runtii anigu waxaan imid wadankan oo soo galay 89 kan imid wadanka Canada in soo sheegay Suleymaan waxaan ahay dadkii ugu horeeyay runtii atro team Soomaaliyeed ka asaaso magaalada Toronto oo la dhaho teamka Banaadir la hayo Banaadir team ninkaas asayaan ku jiray dadkii asayaan ku jiray saaxiibadii oo ana halkan ku soo koobi jirin oo macnaha aad u badan yihiin laakiin aan soo qaadanaya Odo Mursal iyo Xasan Maxamed Harbi oo san horta u dhiri jireen iyo Batroolka ku leeyahay jireen inkastoo dad aad u far badan ee ku jireen teamkaasi aan halkan ku soo koobi karin laakiin waxaan ahaynay teamka ugu horeeyay laga asaasay teamkaas Banaadir la jiray ayaan ahaynay sidoo kale ciyaaraha la dhaho Somali Week waxaan ku faanahay maanta xataa nigi magaca Somali Week inaan ani ahay runtii ayaan ku faanahay maanta rabaa inaan inta ka sheego oo ciyaarahaasi oo marka hore ay dheeli jireen kaliya kooxda Washington oo noo timid iyo Toronto kooxda kaliya ay labadaas kooxood ayaa dheeli jirtay bas laakiin ciyaarihii markii dambe aan u bedelnay aan geenay sidoo aan geenay Centennial Park aan geenay kooxdii min ciyaarihii aan u bedelnay 6 kooxood ku bilownay haddana waa arteen 6daas kooxood kadib fara badan aad 30 team amal ka soo qayb gasho waana meesha kaliya hadda wadankii hooyo marka la soo tago lagu galo lacag la fiirsado sanadka sano dhacdo ee ka soo qayb galeen madax sare oo wadanka kamid ahay sida micnaha gudoomiyihii sanadkii xildhibaankii hore oo micnaha jawaari wasiirka arrimaha dibadda micnaha Axmed Cawad wasiirka arrimaha dibadda Axmed Cawad sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo san waa ciyaaraan oo soo qayb galay oo noo yimid runtii waxa waa ciyaarahan markii la fiiriyo waa ciyaarta kaliya aan dhihi karo qurbaha waa ciyaarta ugu weyn lagu qabto ee Somali Week la qabto
san kasta July iyo August maas la qabto. waa tahay mukhtaar waxaan kusii saqeynaa gabagabadii ugu dambeyntii sida lagu soo celin karaa cayaarihii Soomaaliya oo loo hubin karaa inay noqdaan kuwa tayeysan oo kaalin muuqato ugu jira Afrika iyo guud ahaanba dunida inteeda kale. Cayaaraha Soomaaliya waxa lagu soo celin karaa marka waa inuu base kala soo bilaabaa. Meena base waa kow inuu soo bilaabaa. Meena waxaan ka wadaa ilmaha yariska la soo bilaabo, iskoolaadka la soo bilaabo marka hore cayaaraha iskoolaad la qabto. waxaa loo xoojiyo macnaha cayaaraha gobolada ka bacdi cayaaraha zeerbiida ama zeersi ka bacdi zeeraad gobolada macnaha hataa cayaaraha gobolada sidii loo qaban jiray loo qabto ayaa cayaaraha loo horumari karaa. runtii waxa waaye in la qabto xilliyo kala duwan oo isku xigaan sida macnaha oo cayaaraha oo loo kala jaanteeyo waqti loo kala waxeeyo marka saas ayaa cayaaraha loo horumari karaa. runtii waxaana la rabaa dowladda wadanka markaas inay ayagana runtii gacan weyn ka geystaan oo ay gacan buuxda ka geystaan. runtii hadda waxaan maqlooyaa runtii waagaan dhigi jirnay anigoo dowladda tiimka dowladda ayay ahaa jireen sida batroolka horseed madbacadda macnaha dowladda ayay ka tirsanaa jireen. laakiin hadda waxaa jiro naadiyada dad iska leh ama tiimam ama wakaalado ama macnaha ma jiraan ama businessmen hadda iska wada leh si u badiyin tiimka hadda oo macnaha waan fiican tahay runtii in laga dhigo cayaaraha la geliyo dhaqaale fiican la geliyo fiican tahay runtii. waxaan rabaa halkan inaan kaloo u mahad celisho wasaaradda sportska wasaaradda dhalinyarada sportska runtii shaqada ay qabteen oo aad iyo aad u weyn runtiina ay tahay mid aan dhihi karo mid lagu faano ayay tahay wasaaradaha ugu waaweyn ee hadda ka dhisan wadankan uu yahay anuu u yeelayo macnaha aan siinayo marka u horeysan aan siinayo madaxda wadanka dowladda Soomaaliya markii ay noo saareen garoonkii sida Muqdisho ka saareen ciidamadii fadhiyay ee Amazon-ka ahaa laga saaray runtii hadda arti si loo daacaday anuu u mahadcelinayo dowladda Soomaaliyeed oo horeeyay madaxweyne Farmaajo iyo barnaamijka khayr iyo dhamaanba asxaabtooda iyo wasaaradda sportiga iyo dhalinyarada macnaha wasiirada Khadiija iyo sidoo kale gudoomiyaha kubadda cagta Cabdiqani Saciid Carab asana sidoo kale waa u mahadcelinaya iyo dhamaanba intii ka qayb qaadatay iyo xiriirada Olimbigada oo dhan ayaan waa u mahadcelinaya runtii marka cayaarahaas ayaa loo horumari karaa insha Allah. waa tahay aad u mahadsan tahay waxaa intaas inoogu dhamaaday barnaamijka gaarka isla markaana aan u soo xulanay caawa inuu nagala qayb qaato legend Mukhtaar Maxamed Axmed oo loo yaqaan Mukhtaar Cuti kana mid ahaa ciyaaryahanadii kuwa ugu fiicnaa isla markaana loogu jeclaa dalkeena Soomaaliya. barnaamijka codka Soomaalida dalka Canada ayuu caawa marti u ahaa isla markaana waxaan rabaa inaan u mahad celiyo martidii su'aasha weydiisay kuwii nagala qayb qaatay kuwii xagga farsamada inoo qaabilsanaa haddii ay ahaan lahaayeen wariyaasheena haddii ay ahaan lahaayeen dadka xagga farsamada caawa inoo joogay Cali Bakri iyo Sheego sidoo kale wariyaasha sida weyn uga qayb qaatay Xuseen Xaaji oo barnaamijka soo saaray Nuxur Sheekh Muxudiin Jaamac iyo Muxudiin Sheego iyo agaasimaha oo Alawa inta aan soo gaadin studio asay goobjoog Maxamed Cabdi dhamaantay inagoo isku dhow waxaan idin leenahay nabadino aad ayaan kugu mahad celinaynaa Mukhtaar Maxamed Axmed. هذا مدن وسنت هذين ما دعروا